madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta socdaal aan horey loo sii shaacin waxa uu ku soo gaaray magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan. socdaalka madaxweyne Farmaajo ee Beledweyne waxa uu salka ku hayay kurgalka xaaladaha ay ku nool yihiin dadkii ka barakacay fatahaadii webiga Shabeelle Beledweyne uu ka sameeyay, waxaana garoonka diyaaradaha Beledweyne si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Hirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa gacan qaaday dadweynihii ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Beledweyne, waxa uu indheeyay qaybo kamid ah garoonka diyaaradaha ee Beledweyne oo qaybo kamid ah ay biyo fadhiyaan, biyaha oo saamixi waayay in diyaaradihii shacabka ay soo degaan muddo ku dhow ilaa iyo hal bil. waxa uu geesta kale madaxweynaha uu booqday kaamamka ay ku jiraan dadkii ka soo barakacay fatahaadii webiga Shabeelle oo Beledweyne ka sameeyay toddobaadyo yar ka hor kuwa oo ku nool haatan deegaanka Ceel Jaalle. intaasi kadib madaxweynaha ayaa gudaha u galay qaybo kamid ah Beledweyne si uu xog ogaal ugu noqdo musiibadii bulshada Beledweyne ku dhacday, waxaana madaxweynaha warbaahinta uu la wadaagay wixii indhihiisa uu ku arkay. musiibada dabiiciga ah musiibo qaran ay tahay oo casho ah ee magaaladu ay ku jirtay fatahaadaan soddon kun oo qoys ay kasoo soddon kun oo guri iyo boqol kun oo qoys ay kasoo barakaceen oo qaarkood aan ku aragnay hadda meesha ay ku booqdeen Ceel Jaalle wadarkan xaafadan عليها حوقات dadku waa qaarka waa wada dhacay meel la duubi karo maaha waxaan ku sameeynay musiibo qaran ah oo dawladdu ka qaadanayso qaybdooda ku ilaahay inaan soo gaarno shacabkeena Soomaaliyeed halkaa u waxyeelooday oo la qabno shariifka iyo xanuunka ay ku jiraan insha Allah wax alla wadi karaan aan keenno oo awooda waa soo dhigeenaa gaasha caalamka international community waxaan ka codsanayna iyaguna inay qayb weyn ka qaataan dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ay yihiin dibadda gudaha Suudaanka waxaan ka codsanayna inay qayb weyn ka qaataan hawshan. madaxweynaha ayaa kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo ku hadlayay afka duubka dhaqanka Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana madaxweyne Farmaajo ka codsaday laba qodob oo kaliya. ومعلش نقول لك شو مدحوين يقولون هذا المدحوين أنا وأصل المواضع أعرفك وأعرفك وأحبك شيء جميل أصل النوم اليوم وحكى أصل الماء إلى النفاعته وإلى المكان يقول له لنغطه أبصو أعرفته si aad oo kaafto waxada baliyaasay waxaad markaa u soo noqday lamood hadda ka hor dowladda Talyaaniga inay ballan qaaday arrimaha Soomaaliya inay dhisayso waxaa dhacday wasaaradda qorsheynta inay ka qaybtay aeroboortka Muqdisho oo jiro waqti uu ahayno wadana madaxweyne intaas la soco diftaasna waa qabnaa. madaxweynaha Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare oo dhankiisa isna hadlay ayaa madaxweyne Farmaajo ka dalbaday inuu xoojiyo ballanqaadka uu shacabka ka barakacay Beledweyne uu sameeyay. way sheegina waa ka dhantaa raadad ku soo aragtay airport waa soo aragtay fatahaadii weli anagoo ka soo noqonay waa soo aragtay war waa yeelaalay waa wada indho waxaan hubaa inaad ka dhan tahay in wax lagu sheego annaga waxaa qiimo noogu filan oo karaamo noogu filan oo aan isleenahay wixii aad rabteen waad hesheen imaantinka aad noo timid ayaa noogu filan.
ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhankiisa ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay gacan ka geysan doonto dhismaha garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif si gurmad gargaar ah shacabka ay fatahaadu waxyeeleysay looga soo dejiyo waxa uu dhinaca kale musiibo uu ku tilmaamay fatahaada webiga Shabeelle Beledweyne uu ka sameeyay isaga oo xusay in kaalmooyin kala duwan ay dowladda Soomaaliya la soo gaari doonto dadkii fatahaadu ay saameysay maanta waxaa halkan u yimid inaan idinla qaybsado xanuunka iyo dhibka aad ku jirtaan oo ay keentay musiibada dabiiciga ah oo lagu yeeray musiibo qaran oo runtii kulligeena oo xanuujisay waan ognahay dad kor dhaafaya maanta inay banaanka degan yihiin in laga soo qaxay magaaladii weyneed ee Beledweyne laga soo qaxay oo ku yimid fadhiyaan oo midna qaab dad ee midkooda sayihiin oo la raadinayo sidii loo jeedaa alxamdulilah masha Allah naftani waxay sameeyaan waxaan idin cadeynaya oo aan idin wadaagaya inaan abuuray aan sameynay magacawnay guddi heer qaran oo muslimo oo hogaaminayo hogaar ku-xigeenka maxaa yeelay musiibadan waa musiibo runtii aad iyo aad u culus oo aan doonayno inaan ugu yeerno dowladda keliya ma aha waddanka Soomaaliyeed kasta ay joogaan iyo beesha caalamka annaga dhibta nooga soo aada oo dowladda dhexaa federaalka ah waxaan qaadanaynaa qeyb aad iyo aad u weyn qeybta halkaan qaadanaynaa إن شاء الله هنقول لنا وهندخل علينا كرجال بيتنا هنقول محمد إبراهيم سياد كلسن تي في بلدوينة.